barsaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo qaar kamid ah warbaahinta ugu waramaya xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada gobolkani Togdheer oo safar ku soo maray horaantii toddobaadkan hadaladii gudoomiyahana waxa kamid ahaa hadaan ka warramo xaaladda guud ahaan ee gobolku hadda uu wanaagsan yahay xaaladda nabadgelyada gobolka oo wacan tahay waxaanu galay waqtigii roobka hadaan qiyaasno inta gobolka imika rooban boqolkiiba 5 gobolku waa rooban yahay hadda waxaan loo soo sheegayaa degmada Waraabiye lafteeda oo maaragtay roob jirda gooyahay uu helay oo maaragtay aad iyo aad uu roob ku helay marka runtii ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa raxmadda uu siiyay gobolku waa rooban yahay boqolkiiba 5 hadaan ka warbixiyo runtii waxa jiray dhawaanahan kormeer aan ku soo mareynay guud ahaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Togdheer anaga oo degmo iyo tuulo maaragtay isu taagnay si aan xogagaal u noqono xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin mujtamaca gobolka maadaama uu maamulku cusub yahay runtii halka baahiyaadka aan ku soo aragnay waxa uu horeeya sidaad ogtihiin ba abaarihii dhacay ee wadanka ka dhacay kal hore waxay ka tageen barakac fara badan tuulo kasta oo gobolka ah hadaan iraahdo 97% waxa weeyaan way joogan dadkii barakacayaasha ahaa ee xooluhu ka baxeen runtii dadkaas oo baahan in maaragtay hay'adaha caalamiga iyo international NGOs-ka iyo maaragtay dadka deeq bixiyaashiba ay ogaadaan waxyaabaha u baahan daruuriga waqti roob inuu ku jiro waxay u baahan yihiin waxyaabihii roobka laga geli lahaa waxay u baahan yihiin dadkaas runtii marka aan xaaladooda eegnay waa dad u baahan in loo sameeyo restocking haddii dib loo xoolayo dad diyaar u ah inay xoolahoodii dib ay u dhaqdaan weeye Xamse Maxamed Cabdi gudoomiyaha gobolka Togdheer oo hadalkiisa si wata ayaa ka hadlay dhalinyaro habeenkii dhibaato ugu geysatay wadooyinka madmadow ee xaafadaha magaalada Burco waa kan Xamse Maxamed Cabdi gudoomiyaha gobolka Togdheer oo ka hadlaya nimanka arrinkooda in badan baan ka hadlay nimanka runtii horta habeenka ka sii dambaysa arintaas hoos bay u sii dhacaysaa ka xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaanbana waa arin xilkeedu inuu wada saaran yahay oo la rabo cid waliba doorka ay ku leedahay inay ka soo baxdo oo shacabku doorku ku leeyahay waa maxay inuu la shaqeeyo booliiska cidda wax sameynaysa waa dhalinyaradii xaafadaha waalidku wuu garanayaa kaliya waxa ku filan in inta booliiska la soo hadlo yiraahdo anaga xaafadayda intaas soo inan ayaa rabshada wada gudoomiyaha Xamse Maxamed Cabdi ayaa u diray shacabka gobolka Togdheer baaq ku aadan u diyaar garow xuska dib u la soo noqoshada qaranimada Soomaaliland ee 18 May fariinta aan dirayo runtii aniga fursadan ka faa'iideysanaya waxay tahay marka koobaad waxa inagu soo foole 18 May oo runtii maalintii aynu dib u la soo noqonay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu dib u la soo noqonay koonfureed ee Soomaaliya aynu midoonay oo la ogaa dhibaatadii iyo qaxii iyo dhimashadii iyo maaragtay halaagii inaga soo maray aynu ogeyn maalintii aynu kala soo noqonay oo 18 May baa inagu soo foole waxaan dadweynaha gobolka Togdheer maaragtay aan halkan baaq uga diraya inay aad maalintaasi ay xuskeeda uga soo qayb galaan oo waxa weeyaan doorashooyinkeenu qabsanay meelo badan oo Afrika iyo meelo badan oo Aasiya ah ee wadamada caalamka ah ee la aqoonsan yahay ee ugu dhaqaalaha badan ayaanay ka dhicin doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay inay ka dhacaana aanay ilaa hadda ka suurtagal ahayn sida daraadeed waa inaynu maalinta weynaynaa dadweynaha reer Togdheer iyagoo oo isku duuban oo aan xisbiye kala ahayn oo aan urur kala ahayn in maalinta xuskeeda aynu si weyn ugu diyaar garowno ayaan halkan fariin u marinayaa dadweynaha gobolka Togdheer mar gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi warbaahintu waxa ka weydiiyay hadallo kulul oo ay isbuuci u dambeeyay hawada ay isu marinayeen isaga iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Salebaan Doob waxaanu kaga jawaabay Xamse Maxamed Cabdi gudoomiyaha gobolka Togdheer isla oo hadlaana waan hadlay marka arinta waxaan jecelahay wax dambe maaragtay halka inay iskaga ka dhamaataa Cabdi Qani Baafo warbaahinta SBS TV gudaha magaalada Burco.